ninkan ajnabiga ah ee u dhashay dalka Yemen ayaa maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Puntland waxa ay ku riday xukun dil ah kadib markii lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab isla markaasna uu dalka Yemen uga soo qaaday hubka noocyadiisa kala duwan hubkaasi oo ahaa baastoolado banka badada ah iyo waliba fiilooyin loo isticmaalo qaraxyada culculus xiriiraha guud ee ciidamada qalabka sida ee Puntland Cabdikariin Xasan Firdhiya ayaa waxa uu maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland waxa uu sheegay in ay ninkan laga soo qabtay magaalada Xaabo isla markaasna uu watay hubka noocyadiisa kala duwan waxaana uu sheegay hubkaasi inuu u waday kooxda Al-Shabaab ee la aaminsan yahay inay xiriir dhow la leeyihiin Al-Qaacida Cabdikariin Xasan Firdhiya ayaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Puntland waxa uu ka codsaday in ninkaasi xukunkiisu yahay dil isla markaasna uu qiraal ku yahay in hubkaasi uu soo qaaday doonayana inuu u keeno kooxda Al-Shabaab qareenka u doodaya ayaa qiray in uu ninkan yahay dambiile hase yeeshee uusan mudnayn in dil lagu xukumo waxaana uu xereeleynta guud iyo waliba maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Puntland uu ka codsaday in loo khafiifiyo xukunka lagu riday hase yeeshee gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa xukunkaasi waxa uu ku sifeeyay in uu yahay dil waxaana uu tilmaamay in ninkan uu soo geliyay wadanka waxyaabo haligi kara naf umadeed waxaana uu tilmaamay in ay dhici karto in qaraxyo hore oo dad ku leeday uu dalka soo geliyay waxaana uu hoosta ka xariiqay in qodobada loo cuskaday ay tahay mid qaynuunka Puntland waafaqsan isagoo lagu soo eedeeyay inuu ka mid yahay argagixisada caalamiga ee adduunka Saalix Cafiif Camuud markii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay dhageysatay doodii xeer ilaaliyaha oo horkeenay markay akhrisatay qoraalkii xeer ilaaliyuhu soo gudbiyay markay akhrisatay gal dacwadeedkii laga soo gudbiyay ee qoladii soo baartay ee dambi baarista maxkamaddu darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u aqoonsatay eedeysanaha oo la horkeenay qalabkii lagu qabtay oo ka koobnaa karaatiin ay ku jirto waxa qarxa iyo baastoolado shana oo uu ku waday doontii uu lahaa oo ka soo kaxeeyay dalka Yemen oo keenay Soomaaliya magaalada Xaabo kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalkii oo maxkamadda ka hor dhirtay oo uu dhirtay inay isagu uu mas'uul ka ahaa doontaas watana mulkiyadeedan ahaa isla markaasna uu keenay dalka Soomaaliya khaasatan Puntland magaalada Xaabo markay dhageysatay maxkamaddu qareenkii daafacayay kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay eedeysane Saalix Cafiif Camuud dil toogasho iyadoo u cuskatay qodobka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 222 iyo xeerka argagixisada adduunka qodobka saddexaad isla waxay ku xukuntay dil toogasho Axmed Cawl Jaamac Royal TV Garowe